Ilham Medical and Recovery Center waa isbitaalkii ugu horeeyay ee dhimirka oo laga hirgeliyay gobolka Waqooyi Bari waxaana maanta si rasmi ah xariga uga jaray Imbiga Garissa Township deeqow ee Barow waxaana la socdeen xildhibaanada aqalka hoose ee Garissa Township odayaasha dhaqanka culimo diinka iyo qaybaha kale ee bulshada waxaana aad lagu farxay xariga jarkani maanta fursad weyn oo u soo curatay gobolka Waqooyi Bari oo idil Ilham Medical and Recovery Center waa meesha kaliya ee ugu horeysa oo laga hirgeliyay gobolka Waqooyi Bari dadka ee dhimirka ee ka xanuunsan waxaana maanta si rasmi ah xariga looga jaray Ilham Medical and Recovery Center waxaana ku sugan dhaqaatiir ku takhasusay daaweynta dadka ee dhimirka la waana fursadani ee dadka la doonaya inay ka faa'iideystaan maanta waxaana ku sugan dhakhtarka kaliya ku takhasusay arrimaha mentalka ama dhimirka waa dhakhtarka kaliya ee ka howlgala gobolka Waqooyi Bari oo idil Ilham Medical and Recovery Center waxa uu leeyahay bukaan jiif iyo bukaan socodba Ilham Medical and Recovery Center waxa joogan dhaqaatiir ku takhasuseen daaweynta dadka ee dhimirka la Ilham Medical and Recovery Center waa fursada bulshada oo maanta u iftiintay in dadka xanuunka dhimirka qaba ama dhaqan celintaba halkaas ayaa fursad weyn lagu hayaa bulshadeenta ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari balse maanta gobolka Waqooyi Bari waxa uu curtay Ilham Medical and Recovery Center المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa Ilaahay baa mahad iska leh dad muslimiin anaga dhigay fadhigan quruxda badan noogu isku keenay annagoo bad qabna annagoo nabad ku barinay annagoo caafimaadsan Ilaahaygaas mahad iska leh ideelkeedna ay u sugnaatay marka labaad dadweynaha soo xaadiray ee culimada iyo odayaasha iyo madaxdaba leh oo Imbigeena magaalada Garissa oo ugu horeeyo yaan aad u salaamayaa soo dhaweynayaa una mahad celinayaa marka saddexaad isbitaalkan la furahayo Ilham runtii waan u baahanahay mar walba inay isbitaallo tayo leh madaaris tayo leh taxfiidyo tayo leh in la soo biiriyo waxaan rajaynaynaa inuu isbitaalka noqdo isbitaal tayo leh oo dadweynaha wax ku soo kordhiya isbedel fiicanna keena inuu Ilaahay ka dhigo waan u duceynaynaa cidii furtay dadaalkan soo bixisay sidan u soo habeysay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu waafajiyo inay dadweynaha si fiican ugu adeegaan oo ay ka dadaalaan baan Ilaahay uga baryaynaa subhanahu wa ta'ala inta kadib walaalayaal haddii aan nahay dadweynahan Garissa ku nool
inay dhinac walbaba la isgarab qabsado oo la wada dadaalo ama madaxda ha noqoto ama culimada ha noqoto ama hooyooyinka ha noqdo ama aabayowga ha noqdaan in la isgarab qabsado oo la dadaalo oo dadweynaha la tayeeyo oo kor loo qaado waxbarashada kor loo qaado caafimaadka iyo dhakhaatiirta iyo isbitaalada kor loo qaado arrinta aan isku boorrinayna arrintaa weeye marti sharafka our guest of honor our leaders thank you so much for coming today waad ku mahadsantihiin maanta marti aad u tihiin isbitaalka Ilham Medical and Recovery Center isbitaalkan marti kuma aha magaalada Garissa wuxuu dhisan yahay 8 sano hadda marka hore wuxuu ahaa rehab center oo meeshan wad garanaysiin dad badan baad keenteen dad badan lagu daaweeyay laakiin maanta waxaan jeclaysanay inaan kor u qaadno oo aan ka dhigna isbitaalka ugu horeeyay oo mental hospital in the region hadaad fiiriso northern NFD ku digay isbitaal lagu daaweeyo dadka ka xanuunsan maskaxda ama dadka maaragtay iska rafaadsan oo u baahan in maaragtay daryeel khaas ah loo suubiyo ma qabna kan ayaa ugu horeeyay marka zaida maanta ugu faraxsanahay in aan suubina isbitaalka in maanta la furo magacayga waa Dr. Hilow waxaan ahay dhakhtarka ku takhasusay cudurrada ku dhaca maskaxda waxaan ahay dhakhtarka maaragtay Northeastern kaliya iska joogo marka waxaan jeclaan lahaa in aan bal xirkood niyada taabto sifa maaragtay our leaders ay u ogaadaan baahida ka jirto iyo dhibaatada ka jirto xaggi maaragtay mental health ma kala dhaca haddaad fiiriso waddankeena waxaan u malaynaa health care waa developed waa hadda our leaders are here nin walba uu og yahay health care waxaan isku daynay in maaragtay laga soo qaada mar waxaa jirtay Northeastern dhanba uu jooga Dr. Dahiya oo kale hal dhakhtar uu jiri jiray haddana markii counties ka la geeyay waad aragteen meeshii aan gaarnay iyo socodka aan suubinay laakiin markii la suubiyo markii la fiiriyo mental health waa weli waan liitanaa hoos u sii soconay but alxamdulillah hadda isbitaalihii iyo dowladdii waxay siinayaan daryeel khaas ah marka so marka waxaad arkaysaa marka leaderska inay maanta ay maaragtay diyaar u yihiin in ay qayb weyn ka qaataan inuu maaragtay bal mental health opportunities ka kor la soo qaada dadweynaha si uga faa'iideystaan marka opportunity Garissa marka waxaan rabaa inaan u sheego dadka ka xanuunsan maskaxda laazim ma aha maaragtay in guryaha lagu haaya laazim ma aha in la dhaho mar walba maaragtay waxa la geenayaa xarumo kale maaragtay aan la daryeelka loogu talagalay masal isbitaalnimadii ay ka helaynin marka maanta waxaa ku faraxsan tihiin in uu jiro isbitaal dadkii awoodoodana fiirinayo macnaha nin walba haddii la dhaho Nairobi aad ama maaragtay Mombasa aad gee haddii la dhaha dadki ma awoodi karaan marka waxay qasbaysaa qofkii maadaama dhibkan uu yahay dhib maaragtay xanuunkan oo soo noqonaya oo chronic condition uu yahay waxay qasbaysaa in oo dadkii ay maaragtay ay raadsadaan meel raqiis ah marka waxaan isku daynay inaan fiirino dadka jeebkooda iyo wax ka turjumaani kara oo maaragtay ay ku heli karaan quality care meel oo looga naxay jeebkoodii dadkina ay ku heli karaan maaragtay caafimaadka u baahan yihiin marka ilhaam taas ayaad ka helaysaa insha Allah laga bilaabo maanta waxaan diyaar u nahay in aan maaragtay aan wada qaabilno wixii xanuunsan oo regionka ku digiisa inuu u noqdo referral center marka qayb weyn ayaan ka yahay aniga as psychiatrist inaan maaragtay mar walba aan joogo oo wixii patient oo imaado care-goodii iyo maaragtay prescription-koodii waxay u baahan yihiin dhanba inay maalin walba aan fiiriyo insha Allah marka kusoo dhawaada Ilham marka aad u faraxsan maanta inaad ka qayb gashin insha Allah alxamdulillah mudanadeena laga soo doortay bartamaha Garissa deeqow macallin iyo odayaasha sharafta leh u soo martida ah iyo kuwa mulkiilaha meesha jooga assalaamu calaykum saaka aad baan ugu faraxsanahay mudanahanagii aan ka soo dooranay magaalada Garissa bartamaheeda inuu nala joogo oo uu u imaaday isbitaalka aad loogu baahan yahay maxaa yeelay isbitaalkan magaalada waa isbitaalka koowaad waxaan ka soo shaqaynayay isbitaal aniga 71 yaan ka soo shaqaynayay meelaha Garissa oo afarta geesa ama xagga noqoto madoogaasha ama ha noqoto balambala ama dhinacan southern ha noqoto ama xagga xuduudka Dadaab ha noqoto Libooya ha noqoto inta dhaxdeeda isbitaalkan meel laga helo ma jirto taariikhda ilaa maalinkan xornimada qaadanaya maanta gobolka waqooyiga maalinkii ugu horeysay weeyay oo nin dhakhtar ah oo aqoonta leh uu imaado mudanahan uu soo doorto arintaas aad baan ugu mahadsannahay mudano waa mahadsantahay soo dhawow
waxaa kaloo lii sheegay isbitaalka muddo 7 sano qaybtaa inay shaqaynaysay qaybtana hadda lagu kordhiyey haddee arrintaa horumar weyn weeyaan aad baa loogu baahan yahay maxaa yeelay dadkanaga xanuunsan wuxuu u badan yahay dad danyar ah oo markuu ugu badan yahay ama ka soo safri karo daanyeere ama libooyo ka soo safri karo ama halluqoo ka soo safri karo haddii la dhaho hindiya ha loo qaado ama nairobi ama aldooreed ama loo qaado bukambani arrintaa ayada ee aad bay khatar u tahay marka isbitaalka aad baan usoo dhaweyneynaa waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dadka horumarkaa sameeyey ninka dhakhtarka ee ku guulaystay inuu noqdo gobolka waqooyiga inuu noqdo ninkii ugu horreeyey asagana waa nin aad u nasiib badan oo Soomaali ah gobolka waqooyiga oo maskaxda haddana bartay nasiib weyn weeyaan aad baa u mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وايد سلامي مدحنا شرفت له وهو ريو مجازيقو بابا أبدا كل سلامة يا دمان علماء وياشا دمانتي أبدا إن سلامة قبلها كل أنا مجيء وعلى عبد الرزاق ونن تيك توكر هاي بدنا وعاز كده ويل بري فكرش أنا هاي ساعة تفرد يورن الراعي ومسار الآن مرة أو شنو دبلان قست السحور الآن صار ما أنت ماشي بنجونا إسبتالكم وعلى غفر السنة إسبتالكم وعلى هاي الهان إسبتالكم وعلى الضبيب دونا دمرك دتك قاس أهم دمرك السوى البوح وكاجا إسبتالكم مركا ما تفض بعدين مركا إسبتالكم وإسبتال لو بهية وحي مقدام معه نيروبي العادي إنديا الله سعداي وحس كبح آير كو إسبتالكم إمام وحد بارك إن شاء الله سارجينينو marka waxaa la dhahay hal libaax saaray ma gulad dad beero iyo weyn baa horteeda ka muuqdaan marka hadalkan intaasaan kusoo koobi aad baan idin salaamaya السلام عليكم إخوة الإيمان أولا وآخرا إلهي بمهد سبحانه وتعالى مهد إلهي كدب وحان وعلينا يا مهد دادكي فكرة مسكحة كدن بيسي كولا كان إنو سورة قال بعد الله waxaan mahad labaad u soo celinayaa martida sharafta embiga county assembly-yaasha boqortooyinka duqeyda dhammaantood iyo chairmanka bis dadaab iyo dhammaan iyo dhalinyarada iyo hablaha imaadeen mahad baan u celinayaa ikhwaani mas'aladan oo ah dhimirka diinteenna wada ogsoontihiin waxay samaysaa wax la yiraahdo wiqaaya وحال العلاج خير الوقاية خير من العلاج دينتين بقولك وسقاشن يشن هرتك بيسميسا ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تأكلوا أموال الناس صمينا كد وهرتك ورنفتين هدلنا نفتين لديري كورتك ورحولها وانت عوننا ويكورتك ورهزيني سنينة هودوانين الزنا ويكورتك الوقاية خير من العلاج يعني كهرتجة يا كخير بدن إني خرج بدن الدواء بحس وحيالها دمر كتجة لجاه هرتجة كو حكا إلهي آياتكس ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي عليه ذكر إلهي بقلبي وكحصلا بل برتا دتك قرآن كإني أخريان وهدي جاقا قرآن كلا أخريه قلبي داو يهي عذره داو كيهي قالمده داو كيهي إمارتي دجنان الدنيا تآخر قرآن كالو هلا بالقرآن كال آخر الله لقن حنبان أنك نقانا وحدان هاي دتكينا الصومالي ده ومحيته روح بني آدم كهدور انتقيموا إلهي أكتيسك ليه إيه مسلمين تا هدولوا لها إلهي أكتيسك قيموا كليه إيه مسلمين تبا أنك الروح حسان أجعلنا مرأة لمركو واش سوقا كسي دينا لذا بتكبر أمبراسو جاف وقران روبكا كدئي قووغا قبانايا قرحبا كدعي باوعي بوغا كويا ليابا كدلي وقاوياي وإنا هبلو ليقان ورد الروحان هدود انتو قيمة لها هدو نولي أنا قيمو لها هدي لا دارو غاري كدعانا مقبا الله فرديا صعب ما وابا تورتي معك دبرتا هذا وداد كسي دايسي marka raali ahaada waxaan codsanaynaa annaga haddaan culummada nahay in hortag la sameeyo ruuxa hadduu waasho dadkiisa ehel u ah dowladdiisa ehel u ah
madaxdiisa ehel u ah ha tuurina waa hebel khadiiji iyo maaragtay iyo faadimo iyo xasan waay ha tuurina waxaa laga yaaba ruuxa wuxuu u dhiman yahay u qaawan yahayba shay yar oo daawadiisa u heli lahaa oo takhtarka gabadha nuurto hadduu u tago loo geyn lahaa laga yaabo daawo yar inuu u baahan yahay waa midda midda labaad asalka waxaa keenaa takhaatiirta raalli ahaada ruuxa inuu isla hadlo dhowr xaala keeni inuu baahdo oo stress ku dhaco oo marka maskaxdiisa isku furmo yaa inuu jiro hayso labadaba daaway leedahay labadaba takhtarka ha loo geeyo anaga waa codsiga midda kale culammada masaajid baan leenahay ha laga wacyigeliyo dadka inay qur'aanka akhristaan ruuxi ka jirrada oo ka waashana inayna tuurin middaas midda labaad embigaa nala joogaa dowladdu baa nala joogaa dakhliga in loo sameeyo dadkaas naga waashay hadday dadkooda tuureen annaga madaxda iyo dowladda yaa dad u ah inaan la tuurin oo la maarata budget loo sameeyo budget in loo sameeyo oo sida hadda meesha kale rihaabka ah ee hadda jazaakum allahu khayr waa nigu mahadinaynaa inay arrinta la xoojiyo yaan codsanaynaa wacyigelina la sameeyo takhaatiirta iyo culummada iyo dowladda wacyigelina intay isku xirtaan dowladda maaragtay wasaaraddan caafimaadka budget waa inay ugu talagashaa oon iska sii daaynin haddii magaca la magacaabo keliya oo gabadha la yidhahdo nuurtoy maskaxdaad u taamto shilinkana aan la siinin waa dhibaato marka dowladda waxaan leenahay meesha budget embiga nala joogaa maxaa wasiiraa jiraan gafani baa joogaa senataa joogaa war dadkeennan quraxda badbadan iyayna naga lamqanin waa midda ka labaad ee keento inuu ruuxa waasho muxushimiwa iyo wasaaradda caafimaadka ood garanaysaan labadiina qayboodba waa county assembly way joogaan waa daroogada magaalo nool ma haysano 10 years to come 10 sano hadda soo socoto generation yaraan haysanayna ma laha dhallinyaradeenna way u dhammaatay daroogaa dishi darooga yaa dishi wiilashii oo qurqurxan gabdhihii oo qurqurxan wakuwa lugaha isla dabamari hadda as we speaking now if you go meeji la dhihi jiray Garissa showground wax kaloo lagu sameeyaa malaha meesha ayada way dhimatay who own that land yaa askara dhulka yaa askara meel la yidhaha Garissa showground maxshimuwa iyo maarata yaa county waa jooga assembly meesha hadday dowladda labada dhinacba waxba ay ka qaban karin annaga culimada nagu wareejiso we will enhance it annaga hagaajinayna we will do all the way maarata wax kastoo qaban karno waan isku geyna maxaa yeelay dhalinyaro aan suganayna ma laha meeshaasay ku dhammaatay waxayba noqotay waday meeja hoyiga bahalla ay noqotay hoyiga bahalla daroogada lagu cuno wixii balaayo dhan lagu sameey gabdhaha lagu kufsado meesha ka soo fakataba waa meesha muxushimiwa waad maqlaysa hadda annaga waxa nagu dhacay waxa la yidhahdo culture erosion and religion erosion and women erosion and elders erosion and political erosion wixii oo dhan baa nagu dhacay nabadguur siyaasadeed baa nagu dhacay nabadguur culamaa nagu dhacay nabadguur dhaqan baa nagu dhacay nabadguur hablaa nagu dhacay nabadguur dhallinyaraa nagu dhacay dhallinyaradana ka carag inta way xirtaan raalli ahaadaad I'm not targeting you but I will fighting the evil waxaan la dagaalaynaa maaragtay dhibaatada wiilasha waxba ma qabaan wakwa wiil baa arka dhaadhowta intan boodiyo dhan sarwaalka baa gogo'an adiga ma la xiran jir bowdadiisa markuu saa dhax wax bay leedahay war maxaa ku dhacaan waa fashion baa la sheekh waa fashion afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'ahu xasana allah saasuu leeyahy war yaa ka baad qofkii loo qurxiyey camalkiisii midkii foosha xumaa oo haddana u arka inuu wanaagsan ruuxu qaawan wanaaggu u qabo maxay wanaag qaawni inta ma horumar ba ayna alxalaara wataqadum ruux qaawni ma horumar ruux qaawni ma horumar ba ceebtiisa oo banaanka taal it is a shame we are telling to you those people waa shameful marka waxaa raalli ahaada xoogaa baasha ila kacdee maanta waxaan haysanaa platformkii oo dhan madax dambe la dooni mala county government national government representative culamadii iyo odayaashu way joogaan and this is a good start meesha waa meelji ugu fiicnay hadda laga istaaday waxaan codsanaynaa in arrintan la xoojiyo wiil dama daroogo uu naga dhimanin gabar dama daroogo ay naga dhimanin dhammaanad maxaa yeelay diintan dadka bedelaayo waa dadka soo annaga waxay da'dan waan tagnay soo maarti nabi waxay dhahan odayaashu waxay yiraahdaan iyo culimada hore waxaan ka dhaxalnay geed hadduu angego maxaa laga sugaa ha ka cabsanina jawaab
geed hadduu angego maxaa laga sugaa waa laga cabsoon ma haddaad cinrowdo geed hadduu angegana dhaca laga sugaa soo saas ma haddaad cinrowdo geeridun baa socotaa soo ma ya jazaakum allahu khayr wa axsana allahu ilaykum aadan u faraxsanahay maantahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaaha mahaddan iska leh mheshimiwa soo dhawow our chairman health committee at the national assembly our CEO culamada joogaan the organizer Dr. Ino iyo dadkeena meesha wala fadhiyo aad ugu mahadsantihiin alxamdulillah mar labaad waa fursad aad u qaali ah maanta inaan ka helno magaaladeena Gaaris meel oo xarun caafimaad loogu talagalay dadka dhimarka ka xanuunsan aniga oo Nuurta Maxamed wasaaradda caafimaadka Garissa County oo u xil saaran xanuunka madaxa ama dhimirka saa u aqaantaan mental health alxamdulillah waan ku celinayaa waxaa maadaama maanta waa farax waa milestone aan gaarnay xaruntan sidii lii sheegay ama aan ogaa muddo 7 sano ayay soo wadeen qaybta jiifka oo ragga keli ah dad badan oo lagu daaweeyay alxamdulillah oo maanta dantooda qabsanayaana way joogaan waxaa fiicnaan lahayd qof ka mid ah qofkii lagu daaweeyay inay meesha noo taagan yihiin oo maanta ay ka bixin karaan experience-kooda horta waxaa la dhahaa there is no health with no mental health يعني قفك عافيمات كيس كامل معها هدو مسكحديسي عاشهين مرنبا مسوابين قفك هدو جركة كلكحن ونسني هاي وحوغانا حنوكين وهايو اسبتال بو آدي كرا داودي سيدل الرمو لقي كرا عنتدي سوعوني الصوى قفك لانو باهن لكن هدو قفك مسكحد كحن ونسني هاي ميو تاسكو دي سوكوان كرا ومايا WHO waxay sheegaysaa 4 qof meel ay fadhido hal qof ayaa maskaxda ka xanuunsan hadda inteenan meesha fadhido marka xisaabta 1 2 3 4 qof baa maskaxda ka xanuunsan xanuunka lagu sheegayo ma aha inaad marada tuurta waan wala fadhinaa anagoo idil waa xanuunsana ingiriiskana waxay ku soo laabaan everyone is mad but the degree of madness differs soo miina maqlay marka waxay dadku ku dimeeshan jiro fadhiyo waa wala xanuunsanahay laakiin xanuunka ayaa kala sareeya qof baa maanta waxa laga yaabaa saaka suuq u soo kacay hadda uu nala fadhiya laakiin maskaxdiisa inaysan joogin cida marka tagta maxaad ilmihiisa doontaa intaad ku dhaqaaqi doontaa ama wax kale murugo kala dhibi doonto bishan hadda aan ku jirno waxaan soo commemorate gareynaa ama aan xusnay bishii maskaxda waxaana ama adduunka ha hata ama Kenya ha hata ama Garissa anaga aan ahay oo aan ka xusnay in dhimirka aad kor loogu qaado sanadkii hadda uu ka duunaa oo waxaa la taxgelinayay maskaxda caafimaadka dadka shaqaalaha ah meel ay joogaan ba ha ahaato hooyada fiyaasiga ku gadaysa suuqa kan dhakhtarka isbitaalka ka shaqayni sheekha masaajidka ka tujini ama meel aad joogto dharaartaada qutulyoonkaada ka heli ama wiilkeena oo kale TikTok-kaaga ha ahaado ma isfahanay waxaana la dhiirigelinayaa in qofka shaqada uu tagaayo asaga naftiisa horta ha u daryeelo caafimaadkiisa ha ogaado in aad iska bilowdo waaye intaad qof kale aadan fiirin ilmahaada salaadii waxa rabtaa inay maanta boosho cunaan laakiin aad saaka marka ugu horeysa ma qabaysatay hadda aan soo gaabiyo Garissa County dhimirka inta isbitaalka weyn noo imaado oo xanuun laga daaweynayo sanadkan bishii 1 ilaa bishii 8 waxaa lagu daaweeyay klinikyeesheena 940 qof oo dhimir laga daaweynayo laakiin inta cilaajiga aadaysa ayaa ka badan oo war heblow jimba haaya war waa la sixire iyo wixii la mid ah marunba amswaabeen qofkii markii lagu soo rafaado ayaa isbitaalka la keenay markuu marayaha tuuro 60% waxay ka imaadeen magaalada Garissa waxaa ku xigtaa Dadaab oo 20% ah Masalani iyo kuwii kale oo ka sii dambeeya Balambala laakiin waxaad ogaatiin Garissa County Township waa meesha oo wax kastaba aad ugu badan yahay
sidii walaalkaynu soo sheegay sheekha subkeem wiilasheenna maanta waxaa dhuminaysaa daroogada wiilil kelina ma ahe gabdhaheennina waa la mid qaadaa la cunahayaa xashiishkaa la cunahayaa wixii lamid ah kudii la cunahayaa dadkeennina farahay ka qaadeen ilmihii meelaha qaarkood markaad tagtiin wiilil yaryaroo isla hadli qaar hadda cusuban dharka inay siibaan rabaan wax u daryeelaya ma laha maanta aad waxaan ugu mahadini waxaa joogaa MP-geena waana honorable Deqo. Please and kindly, mental health aspect in Garissa County has been neglected for quite some time. We want your intervention. Creation awareness is very paramount. waxaan rabnaa wacyigelin aad u badan inaan magaalada ka samayno laakiin hantidii aan ku samaynayna ma hayno waayo mental health at the level top level iyadana saas ka tahay oo weli caawinaad ama partners na support gareynaya ma laha marka dadkeeni waxaan rabnaa inaan aad wacyigelin u samayno wixii xanuunsan clinic-yaasha joogaan maantana fursad qaali aan ku haysanaa outpatient services meeshan laga bixinayo dhimirka in dadka laga daaweeyo intuu yar yahay qofka markii la qabto malaria markii maanta lagu arko labada bari qandho ee ku qabato daawo ah laqdo maxaa la sameeyaa soo kuma caafimaadaysin oo dhaarta dambe shaqo ma qabanaysin maskaxda xanuunkana waa saa oo kale haddii maanta lagu arko haraka daawada lagu siiyo shaqadaada waa qabsani noloshadaada way fiicnaani cidaadana ruux kugu talin ma laha laakiin hadaa lagu fiirsado maxay noqoni marka adoo raali ah cilaajiga dhaqata xanuunsan maskaxda la geynayo qaar waxaan rabaa inaan meeshan baaq ooga diro qalabyo qaarkood oo loo isticmaalayo dhagaha microphone aad u badan waxay keentaa ear problem yani deafness dhagoolay keeni volume aad u weyn ayaa lagu furaa qofka quraanka kor loogu qaadi ilaa ay dhagaha yani meeshii controlka hearingka ay wax ka gaarayaan indhihiya wax looga shibi qaara ku indhabeele qaara la qaraaci qaara intii hoos uumi maxalla idin intii la geliya xaar dameer iyo wixii la mid ah bilbil iyo filfili balaayad lagu uumiyo yaa mara lagu gambini qofkii uu murxi maqaarkii ka dhici ayagoo sakarada isbitaalka intaa soo badan oo lagu keenay marka waxaan dhihi lahaa dadkeena dadka saa u daaweynayaan walaalayaalow quraanka ilaahay shifaa uu ka dhigay laakiin daawana isbitaalaha taala oo maanta isbitaalkeena meesha noo laga furahaya oo dadka inay daaweynayaan professionals isbitaalka weyna sidii oo kale hadduu alla raalli ka noqdana wixii kale oo qaban doonana insha Allah mashruuc kale ayaan iskugu imaan doonaa waxaan hal baaqi dadkeena ugu diray ciidda dadka kula joogo ruux kasta ruux baa iska hadlay war noloshada nolol la noolaan kara ma aha qofka markuu saa leeyahay wuxuu damacsan yahay inuu nafta iska qaado early detection early prevention better treatment qof markuu saa u hadla arka noloshada adduunkan dadkii waa shaqo la'aan guurkii ka wala halaabi haya gabdhihii waa la ku kufsani haya dad badan cudur ku dhacay walaalayaal oo naga Soomaali hadaan nahay diinteeni gacanta kuma hayno mid labaad dhaqankeeni Soomaalinimo uu gacanta ka baxay waxaan rabnaa isu gurmano kan baraaraha socdo oo maryaha tuuro oo meelaha jijiifo aan ku soo xareyna meeshan aan isu aruurina hatta haduudan awoodin in la daaweeyo dhaqanka meeshan daawooyin fiican ay ka helayaan takhtar oo ku takhasuusana jooga Ilhan Medical Recovery Center waa meel lagu daydo waa meel la keensado dadkeena in caafimaadkooda ay boqol ku noqdaan insha Allah taala anoo hadalkiisii badinaynin walaalayaal aan wax isla qabano mental health no health with no mental health maskaxda aan aad ugu taxgelino anaga naftirkeena iska bilawno intaana dad kale aan fiirinin waa wala xanuunsanaa Allah na caafiyo waa mahadsanid my MP and my brother Honorable Major Deqo MCS also Masbadan Mark Chairman Health Committee Banaudowa Isa Chairman Peace Committee wadaadada Chairman Subcam iyo akhyaarta imaato oo dhan assalaamu calaykum all protocol of staff Major Deqo mashruuca munaasabadan maanta
عمل يا مناسبة كم مهم سنة هنا تفرط مساك غير كشو ما أنت مجرين أو أنت your leadership محايا لي mental health was biggest challenge that we have. In fact, the mental coordinator was giving you about last year alone, they have seen it about 900, more than 950 mental health cases at Garissa County Referral Hospital. Aniga waxaan ogsoonahay horta pharmacist aan ahay. I'm also an expert in healthcare management. Laakiin mental health waan ka soo qayb galay, waanan ka soo qayb qaatay. Anigoo post province joogo waxaan bilownay waxaa la train garay mental health issues on issues of drugs, what's called hard drugs, narcotic and substance abuse in South Africa. Waxaan ka bilownay first mental health clinic iyo waxaan bilownay rehabilitation center at Coast General Hospital. In fact, hadda these days Coast General Hospital intuu ka tagay bumaad all coast counties, they are all those rehab clinics and mental health clinics and rehab centers. Waxaan ogsoonahay mental health mashmuuca waa two levels, laba nooc ma loo kala gooyaa, organic and inorganic. Organic waxaa waaye inorganic waxaa waaye maarata waxyaalaha kale oo aan ogaan jirno waalida ay keeni jirtay. Waalida caadiga ah oo aan arki jirnay marka hadda waxaa imaatay organic mental health where chemicals are involved. Maanta mental health ka maanta mas waalida maanta joogto waalid dadka ay doonteen waaye barkood waalid dadka ay doonteen oo muqaadaraad ku dhisan oo muqaadaraad ku samaysan dhalinyaradana maarta youth are the most affected mashmuuca. In fact, NACADA waxay soo bixisay last year waxay soo bixisay report last year ay soo bixisay over 50% of the mental health cases is drug induced mental health, and almost 30% of the youth are affected with those drug induced mental health. Arrintaa waa arrin weyn oo a lot of intervention u baahan, waa arrin leadership u baahan. Maxaa yeelay today aniga markaan hadda intii aan imaaday we were involved with also some NGOs oo ay regaris specialist ay sameeyeen baa jirtay which I was also involved. Waxaan la shaqaynaynay Sheekh Xasan Subkem yaan la shaqaynaynay. One of the intervention aan kula shaqaynayn waxay ahayd issues of mental health and the issues of drug induced. In fact, in Cielo program baan ka qabnaa programka asagana ahna almost we are treating almost more than 30% of the youth in those Cielo because they are affected with issues of drugs. Marka ay saa tahay daawayaashan maarta daroogada ah mashmuuca waxay ka imaanayaan meel badan ay ka soo galahayaan. Boras Boda baan qabnaa hadda maarta daawo hataa kor nooga imaanay iskilax ma ahee Boras Boda ka faraha badan bay ka imaanayaan. Ilmaha dhalinyarada they are all involved in this mental health. Waxaan arkay rehabilitation fara badan iyo meel clinic fara badan oo la furhayo. Waxaan arkay clinic-yaasha iyada ee barkood dadku ay garaacayaan jim baa ku jira baa leeyahay. Barkood maaragtay waxaa lagu leeyahay maaragtay sidii mental health normal treatment ay siin hayaan. But you know ruux daawo daroogo cunay oo asaga withdrawal syndrome qabo oo gariir hayo oo daawada inuu helaan rabo oo maartay jareen hayo hatta haddii aad garaacdo mase hatta mental health drugs asis wax weyn ay u tari malaha. Waa laazim waa in intervention kala la helo. Interventions, one of the intervention doctor is very much aware. Doctor is my specialist, mental health specialist at the Nani Dr. Ilo. Waxaan ka hadlaynaa hadda how to make math wax laga. That is medically assisted therapy in helping mental health as a result of drug induced. Ya mashmuuca aan ka hadlaynay inaan rehabilitation centers iyo clinics aan furno oo dhiigga laga dhaqo dadka asaga dhiigga detoxification lagu sameeyo. Maalin dhaxdaas waxaan la joogay wadaadadii Garis led by Sheikh Korma
marka wuxuu iyo qaadigii hore oo Garis Sheekh Cusmaan Maxamed Cusmaan wadaadada waxay leeyihiin niman yahow anaga naftinkayna waa very emotional thing, very emotional. cid walba problem kan way qabtaa laakiin lama soo baxay, waa very stigma. dad dhalinyaro oo lagu soo rafaaday oo waxyaalo badan la soo aqrisiyay, they have also involved in mental in drugs. marka waxay leeyihiin intervention waa in la keeno. RC iyo county commissioner also was very much involved in that, how to intervene, make an intervention. In fact, in their performance contract, waxa ku jirta how to deal with the drugs and drug maintenance. Even enforcement, enforcement oo maaragtay la xiraay dadka asaga is not a solution. The solution is how to intervene through a mental health rehabilitation clinic, rehabilitation center. Marka Mheshimiwa, we need your leadership. We need your leadership even in the parliament where anti-narcotic drugs and anti-narcotic bills and all those things have to supposed to be expedited. I'm sure there's also a bill which is about that. Marka aniga maanta waan gobaaninayaa arintan, laakiin waxaan leeyahay challenge-ka aan siin hayo Dr. Hilow and dadka meeshan arintan soo furay, waxaa horta meel kale oo weyn in naloo sameeyo. meeshan way yarta in maanta meel kale to weyn oo aan reer Garis ugu maanaya fiicnaan leh oo meeshan ka weyn oo ka nafaas weyn. Secondly, waxaan rabnaa inaan isla shaqeyno anaga Garissa County aan isla shaqeeyo referral hospital aan isla shaqeyno oo clinic-yaashan oo official-ka oo formal-ka inaan isla shaqeyno oo aan daawayaashii aan doonno daawayaashii dadka dhiigga looga dhaqaay detoxification-ka ilmaha looga dhaqaay aan doonno oo aan that intervention aan sameeyo. So with that regard, Mheshimiwa, welcome, thank you, and I think you are the best place today to at least officially inaugurate this particular very important session. Thank you very much. mudanaha laga soo doortay township Mejadeqow, Mheshimiwa Ciise MCA Sabena, CEO Garissa Referral Hospital, Dr. Nurta, Vice Chairman Dadaab, ugaaska qowska ugaas Ibrahim Dubow, culamada iyo duqeyda meesha joogto, dhalinyarada, dumarka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaahay baa mahad iskale meeshan iskugu keenay anagoo caafimaad qabno. marka koowaad meesha soo dhawow, nimankan dhalinyarada way dadaaleen. waxaa lagu sheegay qaybtan hadda meesha lagu daray qaybtii ka horreysay inay 7 sano ay furan tahay, qaybtana qayb lagu soo kordhiyay ay tahay oo aad loogu baahnaa. meeshan waxaa jooga Dr. Hilow oo isbitaalkan agaasimo ka noqon doona ama maamuli doono, ninkaasoo Northern Kenya mental health ninka ugu weyn. aad si gooni baan kula shaqeyn doonaa. qofkaan aan garanayn magacayga waa Aadan Xasan Odowa, guddiga caafimaadka assembly-gan ka ahay chairman. barnaamijkan mental health ama sane dhimirka qaybaha aad noo dhibaan bay ku jiraan annaga haddaan nahay assembly-ga ama guddigaas. hadda waxaan riixaynay policy oo lagaga hadlayo barnaamijkaas. county-yaal kale way sameeyeen. waxaan ingeegareynay niman la dhaho RCK, nimanka departmentana waa wada hadalnay wasiirka. barnaamijka inaan wax ka wada qaban waan rabnaa, laakiin waxaad ogaataan barnaamijkan mental health Garissa wuxuu ugu badan yahay sababta koowaad waa daroogada. daroogadana waad ogtihiin meelo badan sida la sheegay ka soo gasha waddanka. sidii looga hortagi lahaa waa in laga tashado. midaana way mas-uuliyadna wada saaran wey. Sheekh Xasan wuxuu ka dhawaajiyey barnaamij xasaasi ah. meelaha daroogada lagu isticmaalo ama dadka lagu faraqumeeyo waxaa u badan institutionyo ay dowladda leeyihiin. hadda wuxuu sheegay showground. sheekh waxaa kaloo hilmaantay Garissa Guest House inay ka mid tahay meelaha si xun loo isticmaalo. waxaan rabaa arrintaa inuu maqlo Mejadeqow. institutionyo dowladda ay leeyihiin baa u badan meelaha inta badan barnaamijyada daroogada ama gabdhaha la faraqumeynaya ka dhacdo. Sheekh Xasan waxaan ku dardaarmini culimada inaan idaacadaha kali ka wada hadalna maaha. wixii jiro oo gaabis oo dhinaca dowladda inaad noo imaataan oo wixii dhibaato jirta aad noo sheegtaan. waayo bulshada waxaan rabaa inay war kuu sheegto, wixii kuu sheegtana annaga insha Allah waa dadaali doonaa. waad hadda ogtihiin niman dhalinyaro oo Soomaali ahayn oo gaam cabaan oo fara badan oo lagu soo daadiyay Garis oo kulli koola wataan inay joogaan meeshan la dhaho Beeshare Street iyo assembly-ga hortiisa ilaa masaajidka ay diiba soo maralay ilaa 50 cunug baa joogta oo kulli gaam cabayaan. dadkaana dad reer Garis waa dad meesha la keenay.
intaas ummaddii loo baahnaa inay wax iska qabato dhexdeeda meesha waxay noqotay qashuqub runtaan isku sheegaynaa dad kalaa wax ku soo xawilhaya marka nimankan dhalinyarada way dadaaleen aad bay u mahadsan yihiin kolley aniga guddiga caafimaadkeen ka ahay chairmanka si hoosaan u wada shaqeynaa gabadha nuurte sanad walbo bisha tobnaad taariikh 10 waxaa jira maalin la dhaho World Mental Health Day mar walbana xafladda waa la sameeyay tii hadda u dambeysay waxaa laga sameeyay goobaha shaqaalaha dawladda ay ka shaqeeyaan oo waxaa lagu wareegahay meelaha shaqaalaha dawladda ay ka shaqeeyaan marka duulayda wacyigelin fara badan baa loo baahan yahay dhinacaas gabadha wayna sheegto baahida koowaad waa dhaqaale waayo bulshada wax loo sheego oo la isku keeno waxay u baahan tahay dhaqaale gaabiskaana wuu jira waxaan la joogaa Siogi Staalka majadaqo waxaan rabaa inaan kula qoseeyo maashimo waxaa jiray propose rehab Northern Kenya Center for Garissa oo hadda ka hor propose ahaa barnaamijkaana meel ku dhuma ilaa hadda lama ogo waxaan u maleyn I can testify that waxaa jiray rehab lagu talagalay Northern Kenya oo la rabay in Garissa laga sameeyo oo national government ahaa barnaamijka dabagal buu waayay wax dabagalan u maleynaya hadduu ilaahay yiraahdo from today I want you to take that initiative oo barnaamijka meesha ku dambeeyay aad daba gasho soo that rehabka hadii waa lagu sheegay waxa lagu yiri 900 baa imaatay bish hadda la soo dhaafay istaalka ilaa bish 8 oo dad dhimirka ka xanuunsanay inta xaafadaha ku xiran baa ka fara badan waxaan kala noo sheegay in loo qaado dadka xanuunsan in laga sii qaado Gaaris iyo deegaamahanada oo loo geeyo xanuun dhimirka loo geeyo Kismaayo rehab ku yaalaan loo geeyo waa nasiib darro laakiin nimanka dhalinyarada ee barnaamijkan maanta ka shaqeeyeen garabkiina nahay insha Allah dadka badan ayaa farar badan ee xanuunsan ee xaafadaha joogan waxaan rabnaa in la keeno meeshan waxaan u maleyn meesha hadda aan joogno waxaa waayaan u maleyn Ihlaan Medical and Recovery Center waxaan u maleyn meesha soo dhaqaatiir fara badan baa hadleen noogana haboonaayeen hadalka annaga markaan hadalna meesha uu geli waad garanaysid laakiin annaga Panadol iyo daawi iyo kitaabkeeda shaqo kuma leeyahay soo saas maaha marka gabadha hadasho walaasha qaralaha siiyo waaneeda aan qaadano dhakhtarka u hor waad maqlaysay warkiisa aan qaadano waxaan u maleyn dhakhtarka hore wuxuu sheegay regionkan idil meesha ugu horeysay inay halkan tahay meeshan ayadoo rehab baa aan dad keenay dadkii aan keenana uu nagu caafimaadeen marka meeshan Allah barakeeyo waan u duceynaynaa insha Allah wixii la keenana Allah ku caafiyo arintan ani mid baan ku soo barbaaray caano loo baan ku soo barbaaray waalida laba ana miga markaan joogno ruux waxa la jira saara soo tumanayo waashe qofka wax buu ku istaagay gabadha ayadoo dhaqaysay wax biyo ku seertay soo salama dhijir laakiin waalidan faraha badan hadda la soo daay maxaa waay gabar shiisha abi baad arki gabar qayiile baad arki wiil iyo saddex wiil saddex gabdhood oo shiisha wal abi baad arki dadka waaliya ka kari marka waa waalin la doonta taas Allah na caafiyo dadkaas dhaqaatiirtana waxay ka qaban karaan ha ka qabtaan hospitaalkana ha loo duceeyo dhaqaatiirta ku shaqoolana ha loo duceeyo ummadda la keenayna Allah caafiyo hospitaalka ma mar waad ku celin siyoodana uu fadhiyaa annaga asabil ahaanne wixii aan la qaban karno maadaama regionkii meesha u weyneed u horeysay ay tahay waxa la qabta ninka dhakhtarka aan ismaana baran hadda laakiin meesha madalkiisa aad baa u dhigaysanay gabadhan hadda weli committee isku maaninay laakiin aad usma naqaan laakiin hospitaalkan inay wax la qabtaan yaabana si warka waa meesha ugu haboon una sheego meesha daqa wuxuu furaa dantan ugu muhiimsan maanta waa tan buu yiri waa sax sooma caafimaadka ibn aadamka dhan ba meesha ay ku jirtaan waxaan arkay ruux maanta oo dhan Panadol ruugi oo Zulu ku dari oo xanuun baabiye kale ku dari inta laga yahay qofkaas waa stresska ibn aadamki marka waxa fiican in quraan tan saar meesha la keeno bal uu ku nasto anana garba anu seena assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marka waad ku mahadsantiin ilham dadka iska leh oo maanta maarta munaasabadan ugu yeereen xafladan igu yeereen inaan ka soo qayb galo runtii waxay arin hadda markaan buuga qoray waxaan ku qoray waa the best thing that has happened buuga saydo ninka akhriyo saasan oo meesha ku qoray maxaa yeelay maskaxda maxaa waaye waa injinka bini aadanka injinka hadduu xun yahay bini aadamnimadii ma jirayso oo qofkaas sayto si walba hadda u fiiriso marka shaqada haysiin waa shaqo muhiim ah waana ku mahadsan inkastoo hadda waswaasna la geliyo ay nuurta ay tiri nin walba wuxuu qabaa degree of waali
waswaas baa nagalo hadda adigana ma waxaan arkay cabdi cali iyo duqsaal isfiiriyeen oo qoslayn inay wax isku ogyihiin baan u malayn marka way dhici kartaa waana jirtaa qof walbo oo bini aadan waa harta wax baa jira stress ha keeno si walba waxa uu keeno waliba gaaris waxa u malayn way ku badatay dadka oo inay jiran yihiin aan laakiin u malaynaayeen inay quman yihiin gaaris aad bay ugu badan yihiin waxaa dad baa arkay iska qaadan microphone cod video soo dhigay waaga iska buuqi wax aan buu sheego balay aan buu akhrin asagana uu quman yahay laakiin dadka barkii gaarka ninka muwaalan yuu dhig soo saama way jirtaa gaarisaas marka muhiimadda waxa way horta inaa ogaatiin qof walba cudurkanayta aan ka hadlayno qof walba ku dhici karaa qof taajir buu ku dhici karaa qof masaakiin buu ku dhici karaa culumo ku dhici karaa mutacallim buu ku dhici karaa nin walba cudurkan waa cudur uu qof bini aadan uu ku dhici karo ilmo badan oo taajiriin baa jiraan cudurkan ku dhacay meel walba lala aadi daawo loo laayahay waana laba meel mid muhiimka hadda maanta na haysato maxaa waaye waa middanayto drugska yaa horta cudurka weyn yaa keenay waa maqlaysaan bishii aan soo dhaafnay sanadka aan soo dhaafnay sanadka gudihiis oo weli wala dhammaanin qariibu taqriiban 1000 ruux baa hospitaalka u tagtay ayadoo caafimaad caynkaas raadsanayso inta la qarinayo guryaha laga soo bixinayna hadda kulli waa inta in la eegoon marka inaa muhiim waaye inaan ka hor tagno arrintanayto daanahay reer gaaris magaalada la dhahay nin baa ka hadlay meeshan oo sheekh xasan u ahaa magaalada way halawday dadkeeni hore ee magaaladan kusoo koray kusoo barbaaray waxaan ma jirin maxaa keena maxaa waaye waa waxa hadda nagu soo kordhay drugs waaye waa daawo waa li adi aad doonato waaye laakiin way noo haysataa marka taa kale kuma joojinayna waa inaan sidaan uga hortegi lahayn inaan galno maalintaan soo galay ilaa maalintaan ka hadlayay war soomaaliyey diinteenni iyo dhaqankeenni iyo nidaamkii aan ku noolaan jirna naga halawsan yaa naga halaawaya maxaana keenayaa ummad kale nagu soo biirtay meesha gaaris maxay noqotay siduu ninkaad hadlaya uu yidhi qashin qub bay noqotay wiilashaan la yaabi jirnay qaad cunayin ayagoo qaadkii ka tageen qamrey galeen bangi bay galeen qaadkiiba haddana noqdaybo war qaadkaa nagu celiyaa bay yadda joogtaan hadda waxay tagtay qamri drugs qamri iyo bangi iyo wax walbo gabdhaheennina way ku darsameen ninkaan ogeen oo indhaha ka dadanaya mise dhagaha iska baalkeenaya gabdhaheenni dhalinta waa qaad bay cunaayiin shiishe cabaayiin yaana been la isku sheegin waxyaalaha waxaan qarqarinayna waxaan qarina meesha kuma hayno inay wixii dhabta la isku sheega waaye inaan ka hor tagno arrimahaas gabdhaheenni baa maanta qaadka cunaayiin gabar qaad cuntay bangi cuntay nin alla ninka ku dhow wuu iska qabsan ag fadhiyo maxaa la kala xidma cunaysa niman wiilal dhalinyaraa la fadhiyaan madow iyo gaal iyo muslim wuxuu ahaadaba marka inaan ka hor tagno waa mas-uuliyadna saaran annagoo udil wax madaxda keli saaran ma aha laakiin reer gaaris udil bay arrintaas saarantay inaan ka hor tagno muhiimadda weyn maanta dhibka weyn haysto arrinta leeto mental health waa arrintaas sayto drugska sidaan uga hortegi lahayn nabadgelyo xumadana haysato drugskaasay ku lug leedahay waxaa muhiim ah cudurkanayto sidaan uga hortegi lahayn oo maanta iskugu imaanay county government waxay iga codsatay inaan garab ugu noqdo arrintaas sayto CEO-ga iyo nuurta garab waa nii noqonani insha allah madaxda noo maatay iyo culummada iyo duqeyda iyo tolka aad baad u mahadsantihiin ilaahay ha noo dambi dhaafo ilaahay hana cafiyo khaatumada allah noo suubiyo mudan roob iyo nabada allah na siiyo ilaahay ha noo dambi dhaafo ani waxaan u soo istaagaa waa duca wax kaloo hadal lama jiro ilaahay hana cafiyo faataada mara